wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in la baajiyay muxaadaro lagu waday inuu magaalada Muqdisho uu ka qabto Sheekh Maxamed Cabdi Umal taasi oo maalmihii la soo dhaafay dood xooggan ka dhex dhalisay qaybo ka mid ah culimada Soomaaliya waa sida uu warbixintan uu magaalada Muqdisho uu nooga soo diray uu ku sheegayo wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle dad xoogan ayay dhalisay muxaadaro diini ah oo lagu wada magaalada Muqdisho inay ka qabsoomto taasoo jeedin lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid culimada Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliya ayaa gacan ka siinaysa sheekha qabsoomida muxaadarada barkulanku waxa ay ahayd inay ka qabsoomto garoonka kubadda cagta Engineer Risom ee Muqdisho Sheekh Abdulqaadir Maxamed Soomo oo kamid ah dariiqada culimada ahlus sunna ka hadla warbaahinta maxalliga ayaa si weyn kaga hor yimid qabsoomida muxaadarada boqolaal dhalinyaro ah oo u jadbaysnaa dariiqada ahlus sunna wal jameeca ayaa isku soo baxay Muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta Engineer Risom wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay in guud ahaan ay baaqatay muxaadarada ujeedin lahaa sheekha kadib dood ka dhalatay waxa ayaan darro ah in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortago wuxuu sheekhu soo jeediyey isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dhaqaaq u tahay dhammaan aragtida kala duwan ee culimada Soomaaliyeed maanta oo sabti ah taariikhdu ay tahay 26 Rabiicul Awwal 1441 ee taariikhda hijriyada isla markaana ay ku beegan tahay 23 bisha November 2019 wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeedkan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa mas'uul uga ah dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobka 3 farqadiisa 1 wasaaraddu waxay cadeynaysaa inay dhexdhexaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culimada Soomaaliyeed waxayna kulmisaa culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan wasiirku wuxuu sheegay in hadda ay mari doonaan wadiiqooyin kale gaar ahaan dhanka warbaahinta sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed oo ka bixi doona warbaahinta kala duwan ee dalka wasaaraddu waxay diyaar u tahay in Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon isla markaana ay diyaar u tahay soo dhaweynta dhammaan culimada Soomaaliyeed ee diyaar ku ah wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee xilligan baahi weyn loo qabo 48 saac la soo dhaafo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa aad loo hadalhayay dooda dhanka diinta ka dhalatay muxaadarada ujeedin lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal taasoo ka hor yimaadeen dariiqada ahlus sunna wal jameeca oo si weyn u diidanaa jeedinta muxaadaradaas Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho taniya markii fatahaaduhu ay ka dhaceen qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa waxaa socday gurmad gudaha iyo dibaddaba laga sameynayay kaasi oo lagu garab istaagay dadka ay fatahaadahaasi noloshoodu saameynta ku yeelatay waxaana la sheegayaa in dowladda Talyaanigu ay iyaduna u dirtay gargaar ah nooca degdega ah haddaba gargaarkaasi waxa uu yahay waliba sida uu ku yimi ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareysay Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga isla markaana ka howlgasha wargeyska La Repubblica iyadoo oo sheegtay inay gacan ka geysatay gargaarkaasi haba wadeeqdan waa deeq gargaar ah bini'aadanimo oo dawladdu Talyaanigu ay u fidisay ummadda Soomaaliyeed kadib markii mashaakilkii oo fatahaada iyo ay Soomaaliya soo wajahday waan gartay marka maxay ka kooban tahay waa deeq nooceey haddaad faahfaahin naga siiso waa deeqdan abowa degdega ah oo dadka markii tabaalaysan yihiin oo ay ku dhacdo dee sida hiirshabeelle iyo maxaydeen Jubbaland iyo South West Baydhabo iyo meelahaas dadka ku dhacay oo guryo beelay oo hanti beelay oo daadad ku qaadeen waxaas oo loogu talagalo weeye dadkaas oo marka ugu horeysa gurmadka degdega ah waxa la bixiyo weeye waxayna ka kooban yihiin waa
20 tonnelate oo tan weeyaan oo tiradoodu ay tahay. diyaaradaha xamuulka waaweyn oo militariga mid ahoo talyaaniga yaa lagu qaaday. waxay ka kooban yihiin waa teendayaashan geedaha oo guryaha laga dhisto oo militarigu dhistaan oo dadka guryaha looga dhiso. teendooyin baa talyaaniga lagu yiraahdaa. iyo waxaa ku jira kit oo maxaa yidhaha nadaafada oo laysku nadiifiyo oo wixii laysku dhaqi lahaa iyo wixii laysku nadaafin lahaa. waxaa ku jira maxaa yidhaha bustayaal laysi saaro oo la huudo. waxaa ku jira maxaa yidhaha generatoryaal electric oo matooradan la shito oo korontada laga dhigto. waxaa ku jira kit kale oo maxaa yidhaha caafimaad oo koleeraha waxyaabahan daacuunka ah oo marka biyaha wasaqda iyo laga qaado iyo cunto xumada iyo laga qaado looga hortegahayo. waxaana maxaa yidhaha ay loo diray gobolada Hirshabeelle, South West, Baydhabo iyo meelaha Soomaalida u taqaano iyo Jubbaland, Gedo meelahaasay ku wajahan yihiin. waxay na tageen shalayto bishu markay 22 November 2019 ay ahayd subaxii aroortii 1 saac iyo barba diyaaradu airportka Aadan Cabdulle oo xamar ka degta. waan gartay Shukri. waa deeq ballaaran intaad soo tirisay markaynu eegnayo noocyada ay ka kooban tahay. siday deeqdani ku timid dabcan dowladda talyaaniga aynu ognahay muddo dheer inay xidhiir la lahayd Soomaaliya. marka dhinaca deeqa ay ahaydna dee wadamo kalun la arki jiray muddooyinkii ugu dambeeyey. deeqdan inuu gurmadkan sameeyo talyaanigu siday ku timid? waa arrin wanaagsan abowe. waa ku mahadsan tahay su-aashaadi weydiisay. waxay ku timid dabcan xiriirka talyaanigu saad u sheegtay waagi hore waa isku fiicnaan jirnay laakiin 30 sano oo dambe Soomaaliya talyaani intuu diyaarad military oo xamuul kiciyay Soomaaliya una gurman. qofka bini'aadanka inuu is amaanana wax fiican ma aha laakiin sida Soomaaliya ay og tahay anigu hadeer sanadkan 2 jeer baan ku noqday. marka April, May, June markay ahayd meelahaas yaan Soomaaliya anigu madaxtooyada Soomaaliya waxaan la soo sameeyay gacan saar oo siyaasadeed oo inaan anigu waxyaabaha dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haysata aan wax kala qaban karo. taas anagoo ka duulaya yaan talyaaniga u tegay dowladda wasiirka waliba wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda talyaaniga oo la yiraahdo maaragtay professor Isaweeye waxa la yiraahdo Emanuele Claudia del Re iyo safiirka talyaaniga cusub oo nin fiican oo la yiraahdo Alberto Vecchi la yiraahdo. labadaas qof iyo baad noola shaqeeyay anna inta de u tagay baa waxaan ku yiri hadaad asxaabatihiin oo saaxiibatihiin wadankii iyo dadkiina dhibaato iyo uu qaaday oo maaragtay natural climate uu maaragtay ku hadsaday waa inaad noo muujisaan saaxiibnimadiina iyo wanaagiina oo ummadda Soomaaliyeed aad u gurmataan. runtiina way aqbaleen, way dadaaleen. diyaaraddaas alaabtaas laga soo buuxiyey waqti badan bay qaadatay. aniga iyo wasiir ku-xigeenka iyo ninka kabineetkeeda 3 qof baa arrimaha dibadda talyaanigu weydiisteen inuu diyaaradda soo raaco laakiin qoladii groupkan oo UN-ka iyo diyaaradaha caymiskii diyaarinayay iyo kuwan maxay yidhaheen program mondiale la yiraahdo oo bamka loo yaqaan marka loo soo gaabiyo yaa waxay ka cudadaartay waxay yiraahdeen dad shibil oo rayada ma qaadi karno oo cabsi marka saas darteed hadii kale aniga wasiir ku-xigeenka waaba soo raaci lahayn diyaarad. waan gartay. ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo talyaaniga laftarkiisaba iyada dee deegaano ka mida ayay ka dhacday dee fatahaado dee roobab waaweyn ka da'een. haddaynu eegno ma intan unbaa deeqdu mise oo halkaa mar unbaa la tegey mise waxaa jirta iyadana qaybo kaloo iyadana qorshaha ku jira amaba ay suurtagal tahay inay ka dabageeyaan? wallahi talyaanigu markaan siyaasadiisa waayahan dambe aad baan uga shaqaynay. wuu noo diyaarsan yahay, wuu noo soo jeedaa laakiin annaga dhinaceena xaggiisa waxaa ka jira wax habacsanaan diblomaadsinimo la yiraahdo. haddaan anagu habacsanaantaas inta iska saarno talyaaniga hadda noo soo jeesto long time shaqo aan ka qabano 10 sano aan ka haynay oo civil society-geena iyo dowladaba dabcan wax hawl badan laga hayay ay waqtigan waa waqtigii laga faa'iideysan lahaa. marka waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo diblomaadsinimada aan anagu ciyaarno iyo sidaan isku furfurno
oo aan xilkasnimadayada u muujino inaan dhibaatooyinka waddankayaga dadkayaga haysta oo maalin walba daadadku iyo fatahaadu qaadahayaan ugu faa'iideyn lahayn haddaan u xusul duubno oo u istaagno. waxaan hubaa hadda markaan talyaanigu inuu diyaar u yahay inuu xiriir fiican oo wanaagsan, xiriirkii horena soo celiyo, xiriir fiican oo kalena nala yeesho. hadalkaasina waxaa u dambeeyey Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayay u waramaysay.